maanta gada waxaa ka jirta colaad uu qayb ka yahay madaxweynaha xilka haya hadda 6 sano ka hor xaalku uu ka xasiloonaa kan maanta madaxweynihii xilligaasna waxa uu gada u tagay inuu caawimaad ka geysto abaar ka jirtay gobolka laba arrimood mid waa gargaarka iyo samafalka iyo amuuraha hadda taagan sidii wax looga qaban lahayo nolosha dadka taabanaya midna waa horumarka siyaasadda madaxweyne farmaajo ku wajahaya Kenya iyo Jubbaland waxaa jiheeya 3 qodob dana qabiil xukun jacayl iyo danta Ethiopia maxaa la isku hayaa wadan qaran iyo ka hortag shisheeye mise dan shakhsi iyo mid reereed dacdada u dambeysay dawladda federaaliga xiriirka ugu jirta Kenya ayaa sabab looga dhigay booqashada Muuse Biixi ku tagay Nairobi balse madaxweynaha Somaliland wuxuu xiriir qoto dheer la leeyahay Ethiopia iyo Djibouti waa kan isagoo si maamuus leh loo qaabilayo waxaanay labada madaxweyne ee dalalka Somaliland iyo Djibouti kulan kooban ku qaateen qolka VIP-da ee madaarka Djibouti International Airport Jubbaland waxaa isku haya Axmed Madoobe oo Kenya garab iyo gaashaan ka helaya iyo farmaajo iyo beeshiisa oo taageero ka helaya Ethiopia waxaana caddeyn u ah dhacdooyinkan shalay farmaajo oo murashax ah 2016 waxa uu heshiis Nairobi ku dhex maray dawladda Kenya iyo beesha madaxweyne farmaajo Marihan ni jamii inayoishi afka aad kula hadlaysan Kenya muxuu ahaa marka afkan kula hadlayna waa anagoo beesha sadaa af qabiil baan kula hadlayn heshiiskan markii uu dhacayo farmaajo waa murashax Kenya degan dacwadda badda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya waa mid socota faragelinta Kenya iyo Jubbaland way jirtaa farmaajo kolkii uu madaxweyne noqdayna waxa uu mar kale garab ka doontay Kenya January 2019 ayaa farmaajo ku qaabilay Villa Soomaaliya Senator Yusuf Xaaji iyo gudoomiyaha gobolka Gaarisa Cali Buunow Qorone farmaajo ayaa ka dalbaday Kenya inay taageerto in la rido Axmed Madoobe June 14 2020 ayaa madaxweyne farmaajo u aqoonsaday Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ka hor aqoonsiga farmaajo wuxuu isku dayay in Jubbaland ku qabsado ciidamo Ethiopian ah sidii ka dhacday Baydhabo August 19 2019 ayaa diyaarad sidii ciidamo commandos oo Ethiopian ah oo farmaajo taageeraya ay damceen in garoonka diyaaradaha Kismaayo ka soo degaan laakiin ciidamada Amazon ee saldhigoodu yahay Kismaayo ayaa ka hor istaagay inay soo degaan isku daygaas markii uu fashilmay madaxweyne farmaajo waxa uu diiradda saaray gobolka Gedo isagoo ka faa'iideysanaya tabashooyinka beelaha Jubbaland dhexyaal waxa uu amray in ciidanka xoogga dalku tagaan gobolka Gedo si Axmed Madoobe looga faromroojiyo talada gobolka waxaa xigtay in 7 degme ee gobolka Gedo ka kooban yahay loo sameeyo maamulka madax bannaan Jubbaland farmaajo ayaa si dadban ugu sameeyay madaxweyne ku sima ah maamulka Jubbaland gudoomiyaha gobolka Gedo Cusmaan Nuur Xaaji Macallimo Gedo halista ciidanka loo geeyay inay ka hortagaan maxay ahayd ciidanka Gedo la geeyay waxay dawladdu ka soo rartay Muqdisho iyagoo diyaarado ku soo dulmaray degmooyin iyo gobollo cadawgu haystaan ujeedka ciidanka loo tababaray markii hore ayaa ahayd inay xoreeyaan gobollada cadawgu haystaan balse Gedo oo 8 sano xor ahayd xaalad xasiloonina ka jirtay waxaa ka qarxay dagaal beeleedyo ay qayb ka yihiin maxay tahay waxay Gedo muhiim ugu tahay madaxweyne farmaajo kuraasta xildhibaanada federaaliga Soomaaliya 16 ka mid ah oo laga soo doortay gobolka Gedo ayuu madaxweyne farmaajo doonaya inuu soo xusho Axmed Madoobena ma ogolata Ethiopia halkay ka soo galaysaa heshiiska 4 dikadood iyo suuqa Nairobi in Addis Ababa loo wareejiyo 45 duulimaad ayaa Kenya ka yimaada maalintii oo Muqdisho ka dega kuwaas oo sida cargo iyo rakaab waxaana intaa dheer 12 diyaaradood oo qaad keena suuqaas ayay Ethiopia danaynaysaa inay Kenya ka saarto June 2018 ayaa waxa uu magaalada Muqdisho heshiis ku dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia qodobka 7 ee heshiiska ayaa ah kan ugu culus wuxuuna ka hadlayaa in labada dal ay ku heshiiyeen si wada jir ah inay u maalgeliyaan 4 dikadood oo Kismaayo ka mid tahay markaa kadib waxaa kordhay ciidanka Ethiopia ka jooga Gedo hadda waxay saldhigyo ciidan ku leeyihiin Garbaharey Doolow Luuq iyo Ceelwaaq ciidamada Ethiopia ayaa dawladda farmaajo hore gacan uga siiyay doorashadii Koonfur Galbeed balse waxay ku fashilmeen inay soo afduubaan Axmed Madoobe oo garab ka haysta Kenya siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya
waxaa haga danta shakhsi ee madaxweyne farmaajo tan kenyana waxaa u wehelisa danta reerkiisa